Salaamu calaykum caruurey. Kan waa Maxamed. Wuxuu rabaa inuu gurigii tago. Markuu sii socday waddadii loo marayay gurigooda, wuxuu arkay inan yar oo miskiin ah oo waddada fadhiya. Maxamed uu soo fiiriyey. Wuxuu is leeyahay, talow sidee u caawiyaa inankan yar? Uu fikiray. Isagoo ka fikiraya sidii uu u caawin lahaa inanka yar ee miskiinka. Bil Rabadaan ayaa lagu jiraa. In dadka masaakiinta la caawiyana ajar fara badan ayaa laga helayaa. Gurigoodii ayuu ku soo laabtay. Maxamed yar markuu gurigoodii yimi, wuxuu arkay miiskii oo cunto nooc walba la soo saaray. Hooyadii ayaa karisay. Waxay ugu tala gashay in lagu afuro. Wuu weydiiyey Maxamed. Wuxuu yidhi, hooyo, waxaan oo cunto ah yaa leh? Hooyadii waxay u sheegtay inay tahay cuntadii afurka. Wuxuu yidhi, hooyo, ma ka qaadan karaa cuntadan in ka mid ah? Waxay tiri, haa, waad qaadan kartaa. Weel ayuu ku soo ritay. Wuu soo baxay. Wuxuu yimi meeshii uu inanka yar ku arkay. Waddadii markii uu ka waayay inankii yaraa, wuxuu is yidhi malaa wuxuu tegay meesha loogu talagalay inay ku afuraan dadka masaakiinta ahi. Kadibna wuu tegay oo ka soo raadiyey. Waanu soo helay. Maxamed yar wuu farxay. Inankii yaraa ayuu u tegay cuntadiina isagoo sida oo wuu u geeyey. Inankii yaraana wuu ku farxay. Waana u mahadceliyey Maxamed yare. Caruurey, kan waa Mustafa aabihii ayuu u raacay taraawiixda. Markii salaadii lasoo tukadayna, suuqa ayay tageen si ay u soo iibiyaan alaab loo diray. Halkan waxaa imi Mustafa. Wuxuu haystaa lacag. Wuxuu soo iibsaday buskud uu cuno. Isagoo buskudkii iibsanaya, waxaa soo hor istaagtay inan yar oo miskiinad ah. Inanta yar waxay is leedahay, bal buskudka iyo macmacaanka uu cunayo inankan yari waxa kaa siiyo. Mustafana markuu eegay aabihii, wuxuu arkay aabihii oo siinaya nin miskiin ah lacag. Isaguna wuxuu ku fikiray inuu siiyo inantan yar buskudka uu sito qayb ka mid ah. Inantii yareedna wuu siiyey. Waanay ku faraxday oo way u mahadcelisay. Caruurey, Mustafa yare aabihii wuxuu kaga dayday wax wanaagsan. Inantii yareeda miskiinada ahaydna wuu ka farxiyey.